yoga isoo salaamay dhamaantiin aba meel walba caalamka joogtaan waa aniga walaalkiina Aamin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel-kayga hadaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambalelka saad ula socotid muuqaalada soo socda muuqaalkan maanta waxaan fiirinaynaa qofka aanan u qalmin in aad guursatid amaba qofka dabeecadan leh in aad ka fogaatid in aad guursatid waayo dhamaanteena ha dhawaado mise ha fogaado waxaan rajaynaynaa in mar un aan guursano haddii adiga aanan maskaxdaadaba ku jirin wax guur ah in muuqaalkan aad daawatid maahan dhakhtar inaad soo aragtid ayaad u baahan tahay marka waayo guurku waa shayga nolosha ku dhisan haddaysan guur jiri lahayn anaga adduunka ma aanan imaan lahayn marka waxaan fiirinaynaa qofka u qalmin in aad guursatid amaba haddaad ku aragtid dabeecadan aan rabo inaan kuu sheego in aad iska ilaalisid waayo guurku laba mid ayuu noqon karaa haddii aad guursatid ima guurkaas farxad ayaad ka helaysaa nolol wanaagsan ayaad ka helaysaa ima guurkaas waxay noqonaysaa xabsi ayay ku noqonaysaa qof maxbuus oo kale ayaa gurigaaga dhexdiis ku dhex noqon karta waayo xabsiyada adduunkana ugu xun waxaa ka mid ah guri aadan farxad ku haysanin marka horta intaan guda galin cashirkeena maanta waxaan rabaa inaan fiirino guurka maanta badana dhalinyarada isguursada jecel famino dhalinyarada xiriirka yacni ee isla soo wadeen muddo badan ee isla yaqaanaan kadib isguursadeen oo jecel isku guursadeen iyo waalidiinteena dadkii hore oo ayagu aanan is aqoonin isku daray keeba maanta haddaad u fiirsid oo furiintooda ay badan tahay tabcan waxaa badan boqolkiiba 90 haddaan dhahno guurka jacaylka la isku guursado sababta maxay tahay maanta sababtaas ayaa rabaa inaan idin faahfaahiyo waay dadka jacayl isku guursadeen furiinkooda oo batay dadka la isku darena oo isku waareen like sanadooyin badan ilaa hadda ay isqabaan way jiraan dad qaar isku daray oo haddana isfuray yani oo kala tagay idin ma dhahayo ma jiro laakiin way yar tahay haddii loo barbar dhigo dadka jacaylka isguursaday iyo dadka la isku daray furiinkooda yaa badan haddii la dhaho waxaa badan dadka jacayl isku guursaday sababtu waa maxay waaba laba qof isjecelaya waaba laba qof oo waqti isla soo qaatay oo isfahmay dabeecadahooda isfahmeen maxaa sababay in ay isfuraan waa su'aal taagan waayo qof walba ayaa u baahan inuu isweydiyo laba qof isjecel waaye laba qof yani laga yaabo inuu 2 sano isku fukaansadeen 1 sano mise 3 sano waxay noqdoba waa dad isfahmay yani waa dad muddo isla qaateen habeen oo idil isla soo jeedeen marka furin maxaa keenay meesha waxaa ka cad in yani jacayl ku guurso amaba ha lagu daro hadday ku qoran tahay furin ka sokow in ay isfuri karaan dadka inay kala tagi karaan waayo kala tagitaanka kuma xirna in aad jecel ku guursatid amaba in lagu qasbo guurkaas waayo horaa Soomaalidu waxay dhaheen guurku waa god madow waxay kugu soo baxay yani gacanta dagishatid waxay kugu soo baxo ayaad qaadanaysaa haddii roo godkaas madow waxa ka soo baxi kara dahab luul iyo waxyaalo la mid ah ama godkaas haddii gacanta aad gashatid waxaa laga yaabaa inay bahalo ku qaniinaan sidii maski oo kale qolooci oo kale iyo waxyaalaha la mid ah marka waxaan fiirinaynaa hadda waay ee dadka furiinkooda u batay oo isguursaday jacayl isku guursaday inta aadan kusoo ordin ka hor in ay dhahdid waxay isku fureen wax kale ma ahan calafkooda ayaa dhamaaday waxaan rabaa inaan kusoo xasuusiyo wax walbo asbaab ay leeyihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waxa idinka aad kasbatiin ayaad heli doontaan marka iyo qofka yani wuxuu leeyahay dabeecado inuu yeeshto dabeecadaas markaad yeeshatid wax walbo way ku sahlanaanayaan yani wax walbo fudud ay ku noqonayaan waxay kula noqonayaan wax iska caadi ah marka dabeecadaas ayaan rabaa maanta ayaanba isdhihi karaa waxay tahay dabeecada oo kaliya oo yani hadda dadka u dhaxbatay oona sababay in ay furiinkooda bata dadka jacayl isku guursada dabeecadaas wax kale ma ahan waxaad arkaysaa qof ayaa xiriir wada leedihiin okay marka xiriirkiina socdo muddo bil 2 bil sanad iyo bar 2 sano waad isfahmaysaan waa xiriir socdo 2 sano ayaad isfahmaysaan markaas maxaa sameeynaysan waad kala tagaysaan marka kala tagtid kadib
bil ama laba bil kadib haddana xiriir kale ayaad yeelanaysaa. Markii aad xiriirkaas aad yeelatid haddana laba bil 3 bil 4 bil waxay noqoto haddana qofkaas waa isku dhacaysaan waa kala tagaysaan. sidoo kale markuu xiriirkan dhamaado haddana muddo yar kadib xiriir kale ayaad yeelanaysaa. waayo waxaad rabtaa inuu qof oo waqti kula qaata. waayo waxaad baratay inaad qof maanta dhan aad la hadashid, qof uu ku weydiiyo xaaladaada, maxaa cuntay, maxaa samaysay, waxay kula noqotay caado ayay kula noqotay, waa la qabsatay. marka waxaad raadinaysaa qof kale oo xiriir kula wadaaga. saa awgeed ayaan isdhihi karnaa 90% ayaa sababi karta inuu xiriirkiina guurka ah in oo furin ku imaada. waayo waxaad baratay, waad isguursateen, kadib muddo ayaa isqabtaan, laga yaabo in aad bil isqabtaan. markaas qofkan wuxuu soo baxaya dabeecado aadan lahayn. waayo nolosha oo guurka ka horeeya iyo nolosha guurka kadib laba nolol kala duwan ayay kala yihiin. markaas waxaa laga yaabaa inaad ku aragtid dabeecado aanan u ogeyn mise dabeecado ayadana ku ogeyn. markaas khilaafka imaanaya. markaas waxaad barateen qofka dad isfahmaysaan in aad kala tagtaan, xal ma raadinaysaan. saa awgeed waxaad furaysaa, waad furan tahay ayaad dhehaysaa. marka waayo waxaad tahay qof bartay haddii qofka oo isfahmaysaan oo kala tagtaan. waayo xiriir badan ayaa soo samaysatay. adiga waxaad moodaysaa xiriirkii hore iyo xiriirka guurka inay kula mid tahay. waayo qofkan oo walba meeq ka badan ayada ka hore dad badan ayaad burisay, dad badan ayaa kala tagtay. marka dad ayadana ku dartona wax micno ah ama wax farqi ah agtaada ma baka lahan. waayo waxay kula tahay wax aad la qabsatay, waad caadaysatay. marka wax walbo caada ayay kula yihiin. qofka maanta waxaa rabaa intaadan guursanin ka hor amaba intaadan xiriir aadan samaysanin ka hor waa in aad weydiisaa meeqa xiriir ayaad soo samaysay amaba meeqa xiriir ayaad soo martay. waayo xiriirkiisa hadduu bato bas waxaa jaaniskiisa aad iyo aad u weyn in furiinkiisana uu bato. tabcan taas haddaan ugu soo gudbo waxaad isdhihi kartaa amaba isweydi kartaa qofka aad isfahmaysaan oo xiriirka idinka dhexeeyo sidee yeelaa. waa in aan iska dhafaa soo maahan. waayo ma ii qabno, waa in aan kala danaysanaa. طبعا qofkaas waa ka danaysanaysaa. waayo ilaahay buu qoorta kugu gelinin, weli ma isqabtiin, waa ka danaysanaysaa. laakiin xiriirka horta intaadan samaysanin ka hor qofka waa in aad weydiisaa meeqa maalmood amaba meeqa bilood amaba meeqa sanadood ayaa ku filan in aad aniga i baratid amaba in aan isbarano. waayo xiriirka hadduu dheeraado xiriirkaas faa'iido ma lahan. waa in aad qofka weydiisaa intaadan xiriir la bilaabin ka hor. marka aad bilowdid kadibna waa in aad su'aashan weydiisaa meeqa ayaa ku filan in aan isbarano. hadduu ku dhaho 6 bil ka badan qofkaas hor socod ma ahan. qofkana waxaad arkaysaa wuxuu ku dhahayaa waxaan rabaa aniga jaamacadeeda ayaan dhamaysanayaa, waxaan ahay arday ayaan ahay, weli wax ma ii kala hagaagsana. waxyaalo badan ayuu ku dhihi karaa. marka qofkaas camal waxaad dhahdaa markaad dhamaysatid kadib howlahaaga mise waxbarashadaada aad dhamaysatid kadib xiriir diyaar u noqo. adigu aadan dhamaysanin ka hor xiriir haba sameynin. waayo waa waqti dhumis. waxaad u baahan tahay in aad focus garaysid waxa markaas gacmaha kula jirtid, hadday waxbarasho tahay, hadday shaqo tahay iyo waxay rabto haba noqoto. marka anyways inta aan kula kulmi doono muuqaalka lowsidan ah waxaa idinka tagayaa sida iyo nabadgelyo.